Taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha gobolka Sanaag gaashaanle dhexe Ismaaciil Maxamed Yuusuf oo uu weheliyay amaanduulaha ciidanka ilaalada xeebaha gobolka Sanaag gaashaanle dhexe Cumar Axmed Cabdulle ayaa ka warbixiyay howlgallo ay maalmihii u dambeeyay ka wadeen xeebaha gobolka Sanaag waxaana uu taliyuhu tilmaamay inay ka hortageen kalluumaysato si sharci darro ah kaga kalluumaysanayay xeebaha gobolka isagoona halkaasi digniin uga diray ciddii isku dayday inay ku soo xadgudbaan xeebaha gobolka inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan. shirkaas oo ka kooban kalluumaysato sharci darro ah oo ay ciidan ka howlgaleen 21 bisha ilaa 24 bisha kalluumaysatadaas oo ka soo baxaysa Puntland iyo Soomaaliya si sharci darro ah doonaysa badda Soomaaliya u go'do ciidanku saldhigga saddexaad wuxuu ka sameeyay howlgal lixaad leh taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa amar cad ka bixiyay howlgalkaana amray in laga saaro badda waxay ka carareen qalabkoodii iyo agabkii ku shaqaysanayeen waxayna ka baxeen badda waxaanu dadka soo dareefkareynaya ama warqadaha sharci darrada soo siinaya uga digaynaa inaanay isku soo dayin xuduudka Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka heli doonaan ajnabiga ay soo lugoynayaan oo ay warka beenta ku soo dirayaan waxay rabeen iyagu cadibaan mas'uuliyadda ay ku soo kaxayeen ay beer u sheegeen ciidanku wuxuu u diyaarsan yahay wixii aafooyin ama darro ku keenaya meel walba hadday badda tahay ama beriga tahay kaasoo ciidanka wax ka bedel iyo dardargelin ugu sameeyey taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha hadda jooga Mr. Axmed Hurey meel wanaagsan gaarsiiyey qalabaynta badda iyo tayeynta ciidankaba taliyaha meel buu soo gaarsiiyey laakiin ciidanka badda haddeer wuxuu marayaa qaabkiisa casri ah gaadiidkiisa oo tayeysan ciidankii oo diyaarsan oo heega wuxuu isugu iman doonaa meeshii allaale meeshii ay wax ka bilowdaan ayaa ciidanka badda isugu iman doonaa badda waxaan u sheegayaa burcadbadeedda 2 sanadood bay soconaysay 13 laash buu ka qabtay ciidanka saldhiggu iyo 97 qof waxay ku gudayeen bay kaga soo feeyeen badda dhaqdhaqaaqyo badan baa jira badda ah inuu waa sugnahay ciidanka baddana halkii joogaa ha ku soo taxambaabina ayaan leeyahay runtii waxaa barjahabaada oo yar habaabina dad badan oo u gacan haadiya ama tahriib ha ahaato ama burcadbadeed ha ahaato ama sharci darro ha ahaato oo ku soo haga xuduudaha Somaliland been bay isu sheegeen gacan biraha lagu qabanay waxaan kaloo ciidanka aan ku boorinayaa howlgalka wanaagsan kaska ah ay ka qabteen sidii loogu talagalay iyagoo gaadiidkoodu runtii aanu sidii ciidamada kale badan loogu talagalay aan u tageysan laakiin ay dadaal badan ku muujiyeen oo ay ku soo mareen intii aan ugu talagalay ciidankaas uu ku soo gudbay waajibaadkiisii waxaan kaloo aad u ammaanayaa diyaarsanaantooda iyagiyo taliyayaashooda ciidanka saldhigga waxaa leeyahay aad bay u salaaman tihiin insha allah gurigooda loo heli doontaan taliyaha ciidankuna way daba socdaa abaalmarintiina waa heli doontaan xagga ilaahayna waa ka heli doontaan mas-uuliyadda qaadnay qaran xagga bini'aadamnimadana waanu idiin gudbin doonaa inta aan qabataan insha allahu mas-uuliyaddeeda